waxaa garoonka caalamiga ah ee Minneapolis St. Paul International Airport maanta ka soo degay wafdi ballaaran oo xildhibaano qaran ah noogana yimid dalka Soomaaliya. xildhibaanadaas oo horay uga tirsanaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee baaxadda weyn ee State of Minnesota. mudane Sadiiq Warfaa iyo Marwe Sharaf Sacdiya Salaad. haddaba jaaliyadda Soomaaliyeed oo aan u kala harin ayaa iyagu kalgacayl iyo laafurnaan ku soo dhaweeyay. waxaan halkaan u soo gaarin waxaan soo gudanay waajibaad dastuuri ah sida la wada socotiin. waxaanu dooranay madaxweyne cusub Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. aad iyo aad ayaa madaxweynaha u soo dhaweynaynaa. waxaan sharaf noo ah inuu madaxweynuhu yahay Soomaali American. marka annaga haddaan Soomaali American ah sharaf gooni ayaa noo tahay waqtaas. midda labaad horta guushii dhacday February 8 waxay guul Soomaaliyeed. waxaan u rajaynayaa waxay tahay madaxweynaha cusub baarlamaanka haddaan nahay waa la shaqaynaynaa. waxaan halkaan u nimid inaan jaaliyadda wadatashi la samayno. wadatashigaas oo ah sidii loola shaqayn lahaa qurba joogta Soomaaliyeed oo la shaqayn lahayn dawladda Soomaaliyeed. marka waxaan halkaan u nimid waxaa waaye safar gaaban weeye. madaxweynuhu mar dhow wasaaraha ayuu magacaabi doonaa. annaga baarlamaanka waxaa naga go'an inaan la shaqayno. waxaan kaloo doonayaa inaan u mahad celiyo riile madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo si sharaf leh oo geesinimo leh ugu wareejiyey February 8 wixii dhacay ogeedeen. saddex madaxweyne sawirkii cajaa'ibka saddex madaxweyne oo gacmaha haysta wax badan ayaa Soomaaliya laga baran karaa. marka waxa weeye waa madaxweynaha cusubna guushiis waa guul Soomaaliyeed. waana la shaqaynaynaa. halkaan waxa majaalidina la hadalno oo aan sidaan wada shaqayn lahayn oo marka jaalidiyada Soomaaliya aan baraadku ku hayo aan kamid ahaa Minnesota inaan ku soo noqonay aan warbixin siin doono insha Allah taala. ma sha Allah aan noogu soo baxdeen oo noo soo dhaweyseen. midda kale waxaan halkan uga mahad celinayaa dhammaan xildhibaanadii aan ka imaaday hawsha badan qabtay. madaxweynaha cusub Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynihii hore oo isagana sida walaalkay sheegay runtii aysan dhacdeen doorashadii quruxda badneed hadduusan 4 sano ka soo shaqeeyeen oo shaqo aad iyo aad u muhiim ah uu soo qabtay. midda kale waxaan sheegi lahaaba waxa sheegay walaalkay isku war aan nahay. waxaan aad ugu faraxsanahay meel walba in looga dabaaldegay sidii xamar looga dabaaldegayay oo ay ahayd guushii ugu weyneed aan isleeyahay Soomaaliya ay gaartay. waxyaalo badanna laga tegay. wax la arki jiray madaxweyne markuu dhaco dhibaatooyin ay dhacdo madaxweynayaashii sida iskula shaqaynayeen ilaa hadda isla shaqaynayaan. kuwii la ordayayna ay la shaqaynayeen. guul ayaa socota. waxaan rajaynayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala niyadda iyo inta laga sugayay madaxweynahan in uu insha Allah bidmilaahi kariim laga helo. idinkana aad iyo aad ayaan idinku mahad celinayaa dhammaantiin. haddaba shakhsiyaadkii halkaasi ku soo dhaweeyey wafdiga ballaaran ee qiimaha badan ee xildhibaanada Soomaaliyeed ee ka soo jeeday State of Minnesota waxaa ka mid ahaa shakhsi qaali ah oo ka mid ahaa guddiga xalinta khilaafaadka suurtageliyeyna inay baarlamaanka Soomaaliyeed ku soo baxaan Sadiiq Warfaa iyo Marwe Sacdiya Mehri. ila soo dhaweeya saaxiibkay Cabdikariin Axmed Daahir. waxaan ku faraxsanahay maanta inaan magaaladii Minneapolis oo gurigeennii labaad ah aan ku soo dhaweynayo laba xildhibaan oo sharaf leh. saaxiibkay qaaliga xildhibaan Sadiiq Warfaa iyo walaashii Sacdiyo. run ahaantii aad baa sharaf waxa uu baarlamaanka cusub oo socon doona 4 sano soo socda inay xildhibaanada nala jooga maanta aan soo dhaweynayno iyo kuwa kale oo badan ay ku jiraan. waa mutacallimiin, waa wadaniyiin, waa niman iyo gabdho aan test gareynay Minnesota. wax qabadkooda aad ogsoontiin waxay community ka qabteen. baarlamaanka Soomaaliyeedna wax weyn bay ku soo kordhin doonaan. waan filaynay markaan dirayno Minnesota ka diraynay inay noqon doonaan xildhibaano soo shaqeeya dadkooda u soo shaqeeya muujiya mataqaanaa kartidooda, muujiya waxqabadkooda, muujiya aqoontooda. Sacdiya Salaad iyo Sadiiq Warfaa laba qof oo waafiya weeye dalnimada Soomaaliyeed iyo shucuurteennina kiciyey. haddana waxaanu rajaynaynaa shaqada Ilaahay u idmay inay qabtaan, inay ku guulaystaan. taageero weyn baan u haynaa. haddana isla markaas madaxweyne lagu kalsoon yahay ummadda Soomaaliyeed la rajaynayo inuu badbaadiyo maxay ahayd noo doortay taasoo xildhibaanadoo dhanba ay sharaftaas ay la leeyihiin ayaan maanta Minnesota mar kale aan ku soo dhaweynaynaa. jaaliyadda Soomaalida ee ku nool Mareykanka waxaan idin leenahay soo dhawaada. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. waxaa maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay walaalkii Sadiiq Warfaa xildhibaan oo ah inaan ku soo dhaweynay airportka weyn ee Minneapolis iyo gudoomiyaha iyo xildhibaanada kale ee Sacdiyo.
waxaa aad iyo aad ugu faraxsannahay shaqada ay wadaan ee sii wadaan Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya guul barnaamijka qaybtiisii dambe xafladda weyn ee madaxweynaha iyo xaflad gaar ah oo loo dhigi doono xildhibaanada qaran Sadiiq Warfaa iyo Sacdiye Xaaji Mehri ayaa ka dhici doona magaalada Minneapolis shira warsamo galbeedka Minneapolis St Paul International Airport Somali Cable